sharciga maamulka dakhliga oo ay soo diyaarisay wasaaradda maaliyadda Soomaaliya soona ansixiyeen labada gole ee baarlamaanka dalka ayuu maanta saxiixay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ay madasha ku heliyeen wasiirada maaliyadda, cadaaladda, ganacsiga, hanti-dhooraha guud ee qaranka, wasiir ku-xigeenno iyo madax kale. sharcigan oo qeexaya hanaanka qaadista canshuuraha iyo farsamooyinka ay tahay in loo maro bixinta canshuuraha ayay wasaaradda maaliyadda ku soo bixisay dadaal badan iyadoo la tashiye iyo doorba ka soo siisay wasaaradaha maaliyadda dawlad goboleedyada. madaxweynaha dalka Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa bogaadiyay sharcigan oo leh muhiimad gaar ah. waxaa maanta sharaf weyn ii ah inaan saxiixo sharcigan maamulka dakhliga waxaana hubaa inuu yahay mid dalka iyo dadkaba anfacaya waqtigan muhiimka u ah isbeddelka iyo horumarka dhaqaalaha dalkeena. waxaan mahad u soo jeedinayaa guud ahaan guddoonka labada aqal, golaha shacabka iyo aqalka sare iyo xildhibaanada sharafta leh oo gutay waajibaadkoodii dastuuriga ahaa. waxaana mahad gaar ah aan u soo jeedinayaa guddiga maaliyadda ee golaha shacabka oo waqti dheer geliyey sidii looga gungaari lahaa in sharcigan uu meel maro. waxaa kaloo mahad aan u soo jeedinayaa guddiga maaliyadda ee aqalka sare oo muddo kooban ku soo dhammaystiray hawshii kaga aadanaa meelmarinta sharcigan. sharcigani wuxuu ku saabsan yahay maamulka dakhliga waana sharci la jaan qaadaya nidaamka casriga ah ee ururinta dakhliga. madaxweyne Farmaajo ayaa tilmaamay in dawladdu ay waqti badan ku bixinayso kobcinta dhaqaalaha dalka oo sahlaya in bulshadu ay helaan adeegyada lagama maarmaan ku ah noloshooda. dawladda waxaa ka go'an kor u qaadista iyo kobcinta dakhliga dalka si loo fuliyo adeegyada bulshada ay dadku u baahan yihiin ay ugu horeeyaan waxbarashada iyo caafimaadka iyo dib u dhiska dalka. waxaanu ku soconnaa waddadii dalkeenna uu deynta looga cafin lahaa si aan xiriir buuxda aan ula yeelanno hay-adaha maaliyadda ee adduunka kana faa'iidaysanno deeqaha ay bixinayaan. waxaan rajaynayaa in sharcigan lagu dhaqmo sida uu farayo lana fuliyo sida waafaqsan dastuurkeenna. wasiirka maaliyadda Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beede ayaa muujiyay in sharcigan sidoo kale uu kaalin wanaagsan ka qaadanayo barnaamijka deyn cafinta oo rajo wanaagsan ay ka leeyihiin. sharcigani laba arrimood buu qabanayaa. mid waxa weeye sharcigeeni maamulkii baa maanta hirgalay. hirgalkuna waxa weeye madaxweynaha tuu saxo waxa weeyaan deyn lagu dhaqmay noqonaysaa. tan labaadna waxa weeyaan caqabadii inaga hortaagneyd ahayd in la buuxiyo oo deyn cafiska ahayd oo iyadiina marka halka maanta ay ku dhamaatay. marka aad baan u faraxsanahay. waxaan ku rajo weynahay marka sidii madaxweynuhu imika inoo sheegay in la dhaqan gelin doono si degdeg loo dhaqan gelin doono. waxa kale oo ku rajo weynahay shuruucda kale hadhay baarlamaanku say naga ballan qaadeen in iyaguna sidaas leeg anaguna waa dadaalkayga waan laabayna cid waliba dadaalkayna la laabata weey. Muxyidiin Macalin Cabdullaahi Warbaahinta Qaranka, madaxtooyada Soomaaliya.